بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا جنال كيني SMCC. أنت وحان كالي دونا سيدي آيات كو إلالين كرتا عافمات كين هذا عنده وحبين مهين نرش آذنها وحاين قابل سيهن أرقا عنده ونور وانا ديق الله بحيا أخبارتا أقبضا اي مسكحدا قارتا ووحيالها لغو أرقا عندها أرقا وناكسن أياكا عاوين كرو inaad si fiican u qabato howlahaada shaqo. Halkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa 8 qodob oo aad ku ilaalin karto caafimaadka indhahaada. 1. waxyaalaha aad ku ilaalin karto caafimaadka indhahaada waxaa ka mid ah inaad qaadato mar waliba cunno dheelitiran, sidoo kale inaad basato cunista malayga iyo khudaarta cagaaran. 2. inaad joogteyso jimicsiga maalin walba. jimicsigu waxa uu ka qaadaa wareegga dhiigga, sidoo kale waxa uu ka qayb qaataa qashin saarka indhaha. 3. inaad seexato habeenkii hurdo kugu filan. marka aad seexato habeenkii hurdo kugu filan waxa aad dareemi doontaa nasiino iyo firfircooni maalintii. caafimaadka indhahaadana waxa uu noqon doonaa kuwo aad u wanaagsan. 4. inaad mar walba dhaqato gacmahaada, gaar ahaan marka aad taabato ookiyaalaha dadka indhaha ka xanuunsan ay wataan. gacmaha waxaa korkooda saaran bakteeriya ilma aragta ah, indhahana si fudud ayay ku saameyn kartaa caafimaadkooda. 5. ka fogow cabista sigaarka. sigaar cabiddu waxay indhaha ku keeni kartaa halis caafimaad darro. 6. haddii aad tahay dadka badanaa isticmaalo aaladda kombiyuutarka, isticmaal qaacidada 20-20 daqiiqo waliba qaado 20 ilbiriqsi oo nasiino ah. 7. xiro ookiyaalaha ilayska celiya marka aad joogto meelaha aad u sareeyo iftiinkooda, sida marka gaariga la alxamayo oo kale ilayska la isticmaalo. 8. aaladaha iyo iftiinka baluuga. waxaad u badan tahay inaad isticmaasho aaladaha dhijitaalka ah sida moobilada ama kombiyuutarka saacado badan xilliga xaafadda iyo xilliga aad joogto gurigaba. aaladan waxay indhahaada geliyaan iftiin buluug ah oo tamar badan qaadanayo, waxaana loo yaqaanaa iftiinka buluuga ah maxaa yeelay hirarka wareegga ee soo dhaweynayo waxa ay u dhow yihiin qaybta buluuga ah. aaladan adigoo isticmaalayo waxyaalaha aad caafimaadkaada ku ilaalin karto waxaa ka mid ah: ka dhig shaashada kombiyuutarkaada ama moobilka aad isticmaalayso mid ka hooseeya heerka indhahaada. habeenkii ilayska badan ee aaladda iska ilaali, gaar ahaan xilliga mugdiga. halkaas ayaan ku soo koobaynaa casharkeenii maanta ahaa sidee ku ilaalin kartaa caafimaadka indhahaada.